madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu dhawaan saxiixo ama muddo sanad ah oo ku soo kordhiyo xayiraadda dhanka socdaalka oo uu horey u saaray muwaadiniinta 6 dal oo muslimiin ah oo ay Soomaaliya qayb ka tahay. aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa laga hadlayaa in muddo hal sano oo dheeraad ah uu ku soo kordhin doono xayiraadda dhinaca socdaalka ee horey loo saaray muwaadiniinta ka soo kala jeeda 6 dal oo kala ah Iran, Liibiya, Suuriya, Soomaaliya, Suudaan iyo sidoo kale Yaman. xubno u dhow aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen in qorshaha madaxweyne Donald Trump ee uu ku cusboonaysiinayo xayiraadda socdaalka ee dalalka muslimiinta ay tahay markii saddexaad isla markaana uu dhawaan saxiixi doono. madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa sharcigan lagu xayiray inay dalka Mareykanka socdaal ugu tagaan muwaadiniinta 6 dal ee muslimiinta ah waxa uu markii ugu horreeyay saxiixay 27kii bishii Janaayo sanadkii 2017 kadib markii uu talada dalkaasi la wareegay. qorshaha madaxweyne Trump uu xayiraadda socdaalka ku saaray dalalkaasi ayaa ahaa ololihiisa koowaad ee markii uu ahaa musharaxa madaxweynaha Mareykanka. inkastoo uu cadaadis kala kulmay ayaa haatan waxa dhaqan galay damiciisa ka oo mar kale uu ku cusboonaysiinayo sanadkiisii saddexaad. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in qorshihii Donald Trump ee socdaalka xayiraadda wadamada Islaamka uu nabad ka dhigay dalka Mareykanka waxa uu madaxweyne Donald Trump ku amaanay qorshihiisa go'aankaasi. Cabdulla Bilal TV.